السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيدين سلام يا صحابتك وحيران شنالكيغا وأنيقو walaalkiin Cabdallah. Haddaba maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago video aad iyo aad u muhiim ah. Videogaas oo ciwaankiisa uu ku saabsan yahay sidii aad u dhaqaaleysan lahayd daatada ama lacagta aad daatada ku shubatid ee MB-yaasha loo yaqaano. Sidii aan ognahayba mobile data ayuu ayay dhamaataa, waxaana ugu wacan application fara badan oo aan adiga isticmaalaynin oo waxaa jira internet ku furan yahay oo isticmaalaya. Haddaba maanta waxaan kuu sheegi doonaa application aad kaga xiri karto applicationadaas qadka sidii bilaa macno darrada u isticmaalayo. Markaan isla socono video Okay asxaabta isu soo noqod wanaagsan. Okay asxaabta Play Store-ka aad tageysaa. Play Store-ka markaad tagtid meesha oo searching-ka waxaad ku qoraysaa Datale. Datale markaad ku qortid barnaamijkiisana ay kusoo bixi doonaa wejigiisa barnaamijkiisan waaye. Ana hadda uu ii degsan yahay barnaamijkan waxaa degsatay in ka badan 10 milyan oo qof ayaa degsatay. Waa barnaamij aad iyo aad u muhiim ah. Waa barnaamij dadka in badan ay isticmaalaan dunida 10 milyan. Marka open ayaa dhahay aniga barnaamijka. Okay barnaamijka wejigiisana ay kugu soo bixi doonaa. Barnaamijka markuu sidan kugu soo baxo hadda off way soo ujeedid, on ayaa dhigaysaa. On markaa dhahdid asxaabta midkan ugu horeeyo manage data ku qorata waa meesha daatada ka maamul lahayd. Kana waxa way daily limit, macnaha qiimaha aad ugu talagashay maalinkaas aad inaad isticmaashid ayaad gashanaysaa. oo marka uu ka go'o waa uu istaagaa wuxuu ku dhahayaa daatadii inta ugu talagashay maanta waa isticmaashay. Okay asxaabta aan guda galno manage data. Okay asxaabta manage data waatana meesha hadda ay calaamad today ku qoran tahay. Today waxa waaye daatadii aan maanta isticmaashay. This week isbuucan daatadii aan isticmaashay iyo month iyo bisha daatadii aan isticmaashay. Okay aan hore u sii guda galno waa kana marka meesha aan aad muhiimka ah ee applicationada qadkaada isticmaala adigoon isticmaaleynin oo waxba ku tareynin isticmaala sida qaldan u isticmaalo waa meeshan. Okay hadda tusaale u jeedin hadda DU record hadda quful ayaa saaran. DU record markii aan isticmaalayo oo barnaamijkaas aan isticmaalayo oo kaliya ayuu qadka isticmaali karaa ama MB-yaasha isticmaali karaa. Laakiin Android OS midkii ku qoranta hadda uu koreeyo markuu saas u furan yahay mar walba ayuu isticmaali karaa, mar walba oo isticmaali karaa waayo kama xirin markuu furan yahay kaliya ma aha. Android OS kana inaad qadka ka xirtid ma bahan haddii aad ka xirtid telefoonkaada ayaa dhibaato u iman karto. Laakiin application kale ayaa la rabaa in laga xiro. Laakiin Android OS ka ha ka xirin telefoonkaada because Android OS ka waa programka telefoonkaada ku shaqeynayo dhan. Okay hadda asxaabta u jeedid sida hadda Facebook oo kale. Facebook hadda ugu talagalo inaan saaro Facebook as markii aad soo gal oo kaliya ayuu shaqeynayaa. Waa ifaanteen amalena Facebook hadda quful saaro markii aan soo galo Facebook oo wax ka fiirsanayo mise wax ka waxinayo ayuu shaqeynayaa. Sidoo kale soo soco Google Play Store sinima waa kana iyo marka aan si ku jiro oo kaliya aan isticmaali karaa. Waa kulli u jeedid marka. Okay asxaabta mid kale aan idin sheego barnaamijkan markii aad quful saartid sida hadda WhatsApp oo kale markaa quful saartid WhatsApp-kaas waxay oo la mid tahay adigoon qadka isticmaaleyn because internet-ka dhan ay ka xirtay. Laakiin markii aad soo gashid wuu shaqeynayaa. Laakiin inta ka maqan tahay WhatsApp-kaas oo banaan ka jirtid WhatsApp-kaas ma shaqeynayo maxaa yeelay qadkii dhamaa ayaad ka xirtay. Okay marka asxaabta waa kana barnaamijka saadi kugu kala sheega waaye haddaan mar kale kugu celsho Android OS kaas internet-ka haba ka xirin siis banaanba. Laakiin applicationadan kale oo dhan waad ka xiri kartaa sida hadda contacts-ka waa ujeedaa Chrome-ka waxaas oo dhan waad ka xiri kartaa adiga kaliya markii aad isticmaalaysid ayay MB-yaal kugu soconayaan. Okay waxaan filayaa asxaabta inaad ka hesheen barnaamijkan oo aad wax badan ka faa'iidi doontaan.
insha allah play store-kan ayaad ka heli kartaa barnaamijkan. waxaan filayaa inaad videogan ka hesheen. fadlan haddii aad videogan ka hesho like, sidoo kale haddii aadan ka helin dislike.